قطارك بلعت كبحة تجابنا بسم الله هو فيري كوين مش ما قوي نصدر مو halkan waa qaybta sare ee biyo-xireenka degmada Balcad. بلعت واحد أحمر وبيجا شبيلة بيس عاشة ليه ياكل biyo-xireenka ugu weyn ee magaalada Balcad. aad iyo aad biyo-xireenka ugu weyn waa degmada Balcad waa kana wuxuu leeyahay biyo-xireenka meel lagu xukumayo biyaha oo laga xiri karo laga furi karo. halkan waa qaybta sare ee biyo-xireenka degmada Balcad. halkan aad u jeedaan waa 13 mishiin oo loogu talagalay biyo-xireenka markii biyaha yaraadaan 13kan waxaa loogu talagalay in biyaha lagu xiro si ay ugu faa'iideystaan bulshada ku dhaqan degmada Balcad. haddii ay biyaha bataan oo biyihii aad u bataan waxaan sameynaa 13kan mishiin waa la furaa si ay biyaha u gudbaan ee aadaan afgooy oo dhigle. halkan waa qaybta hoose ee biyo-xireenka degmada Balcad. waxaa ku qoran qoraal taariikhi ah waxaa la dhisay oo la daahfuray 22 bishii 10aad 1980 waxaana dhiseen dawladda Kuuriya iyo dawladda Soomaaliya oo iskaashanayaan ayaa dhiseen waxaana ku qoran qoraalkan biyo-xireenka waxaa lagu dhisay iskaashiga saaxiibtinimo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee dadka Kuuriya. بيا واكن كانوا حريه هاي وقت حاليا دب كرة لقى فريا كر ما كان لقى فرق بيا صعنيا واكن وبيجي لنا عن كل واحد إلى أفجوية حاجة شوية كان كلا هادو فريه هاي ملاقة سلو الضوان واكن ملاقة ولي النوي بسم الله ما شاء يا كين بعد كين أكو قليل كين اتصل ملاقة كتيرة كوين فيري كوين مش ما قوي نصدر مو بس ده واقعنا waxaan joogaa mid ka mid ah beeraha ku yaala magaalada Balcad waxaan joogaa beerta ilma Cusmaan Tuni ku soo dhaw janakay geedisaan ku soo dhaw beerteedii maanta dalxiisayaasha ha ku soo dhawaadana beerteedii waa ku maasatay namariya beerta soo aragno waa kana beerta Balcad waxaa dhexmara wabiga Shabeelle wabigana waxa weeyaan wabiga ugu dheer Soomaaliya ee dhexmara wabiga waxaa ka faa'iideysta dad badan kumanaan kun oo dad ka faa'iideysta biyaha xagan oo ka yimaada ka bacdina waa ka itiinkii u geeniyay beerta dhan beeraha kale kuwaas yani beer ba xaga ku yaala hadda beero badan ba meesha ku yaala ma sha Allah Balcad caan wuxuu ku tahay sidoo kale beeraha beerta waxaa ka baxa moos bukeni mooskan waxa weeyaa suugada ayaa lagu sameeyaa dadka ogeyn moos suuga lagu sameeyaa ana waligay man arag laakiin insha Allah marun waa tijaabin doonaa biyaan xagan socda ilaa bartan socda sababta maxay tahay biyaha waxa uu talagalay in geedka oo haay mirta oo haay isbuuc ka bacdina oo ka xirto biyi ka xiro uu talagalay marka cambaha soo u haayo oo dabaasha u soo ridin oo biyo u ceshto uu talagalay biyaha hal isbuuc dhan oo ku jirayaan laakiin ka bacdi waa ka xiraa isbuuc kale ka xiraysa isbuuc kale ka xiraa biyina waa dhuqsaa meeqa geed camba xagan waa geedaha way badan yihiin geedo badan waay adiga 20 geed camba waay hadda cambaha soo dejinayna okay هاكا عمبي ما شاء الله خيراتكي ضلك واكن عمبه قنبه مقعيس مرداف بيس عاشة وليم ياكن كل يوم سفينيا بسم الله بسم الله بيس عادو بضيه قجار واي واكس ساسو بحا واكس قابكاس بحا قجار واي beerto ka baxa قطارك بلعت كبحة تجابنا بسم الله كبسر عليه واكن وراشين كلا قدره واكن انت انه كبحة ما شاء الله waxaa badalku ka baxa geedkan waa afakaanda marka waxa ugu dhaliyay ina wadankeena ma ka baxdo laakiin wadamaha kale ka baxdaa abuurkeeda xabadii $2 Muqdisho la gadaa hoteelada lagu gadaa marka xabad laftiya soo gatay waa abuurtay marka waa dadkii ina hadda tuso inay afakaanda waxaan yihiin inay arkaan oo soo u baxayso oo waa kana geedkeeda tijaabo ahaan
kabacdi waa ku beersa beerta tituran waa ku beeraya maasha allah de kiilaa adigana $2 la kiilada adigana $2 $2 $2 gadaa ay dadku dibadda ka keenay somo waddanka kanaan insha allah waana ku taageeranaa Waa, insha waay hadda waxaan tijaabinaynaa cuntooyinka ugu caansan ee deegaankan balcad iyo agagaarkeeda maxaa waaye cuntooyinkan geedsahan oo kusoo dhowow degmada balcad walaalkay waxaa kugu casuum waxay tahay cambuulo iyo maxog iyo bun deegaankan dhaqanka deegaanka waaye maxogaan aa ujeedid ama kasaafa afrikaanta kala dhahdaa 80% deegaanka waa laga isticmaalaa dadka degan Aye. 80% way isticmaalaan marka gacanta lagu cuniyaa miyaa aad iyo aad gacanta ku cunaysaa bataati oo kaleeto u egyahay bataati macaanka bataati macaan oo kale waaye sidoo kale meeshaan waxaa waaye macaan kanna waxaa waaye bunki waaye ha waxaa loo isticmaalayaa sinaan leeyahay inaad barato waaye ha aan leedahay saasna marka adiga ay qabo haa marka bixita waxaas waxaa waaye dhaqanka deegaanka waaye sidoo kale bunka waa ogtahay Mm. markii meel la isku casuumo mase madan la tago waxa ugu horeeya laga bilaabo waa bunkaas iyo maxogaas iyo cambuulada waa deegaankan waxaa ku xiga bariiskii iyo madal walbo la isku casuumayo aroos ha ahaato tacsi ha ahaato waa yar kuleen waa laga bilaabaa haa waxaan san kasaas sanka soo saaraysaa si fiican muuqaalkan sponsor waxaa ka ah Castello Cafe waxaan rabaa maanta hees maya maadaama baydhabo insha allah muuqaalka ku xigta waxaan noqonaysaa baydhabo ma garata so hees maya هسمة ماي. وماي ha هذه ما دلبنا مثلا adika aan ma kala qaanay kasleedina ugu wanaagsan dadka arkaya diyaar ay ku tur haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarley wax ugu qabo wana lama huraane hagarley wax ugu qabo waa ku mahadsantihiin daawashadiina anaga ilmaaminaa subscribe like comment wanoo muuqaalka soo socota iyo baydhabo